إسماعيل بريهم واحد دجال كل جرتي برت فيسبوك سببت كل كلفتي وأنصر نقول دونا وحيالها دجال كاي وكبل هذا ماشي كومرين لكن مرة ورش ما زنت أنا جمعي وحالي هذا إسماعيل أحمد آدم إسماعيل بولي كومع عبر كدي إيه صوت روبو هيستوري وحنقول الشيء دقيق صور سنة كيكون سيال متواتر شنتي وحن لصو الشقيق هذا فرابان وعي كميد اليونايتد نيشن كا إيو MSF لبقي وضع MSF كميدة runtii arrintan waxay u kalifay aniga yani waxa waaye maadaama aan sarkaal qaramada midoobay u shaqeeyo WHO waxaa runtii dhibaato weyn ii geystay yani kooxaha xabjirka ah ee al-shabaab ee ka dagaalama Soomaaliya raggaas ayaga ah runtii 9 xabadood bay u dhufteen runtii hantideedii way dhaceen waxyaabo badan bay ii geysteen dhibaatooyin fara badan kadib haddaan u soo laabto barnaamijka mawduuc horta raggan daahir iyo carab aniga runtii uma aqaano saxafiyiin mana ku tilmaami karo afkuwa waa saxafiyiin waaye aan ku dhahna iguma yaallo mana laga maqli doono raggan aniga waxaan ka aaminsanahay rag af ku dhigliyaal ah gacan ku dhigliyaal ah il ku dhigliyaal ah oo runtii shaatiga al-shabaab ugu jiro runtii al-shabaabka ma ahan keliya kuwa afka duuban ee isqarxiyo Soomaaliya ku dhibaatay ama dunida daafeed keliya ma ahan al-shabaab waxa waaye siyaabo fara badan bay u shaqeystaan waxa marka runtii hubaal ah in al-shabaab maantayto dagaalkoodii runtii maarkana muxuu ahaa uusan maantan igu horeynin maantan igu dambeyn doonin raggan dacwadoodii markii aan ogaaday markii aan u kuurgalay yani waxyaabaha ay ku jiraan barta miidiyaha ama social media ay ka wadaan ayaa waxaa ii caddaatay raggan inay linkis ay la leeyihiin kooxaha xag jirka ah ee al-shabaab ee ma arkino fadhigooda uu yahay magaalada Muqdisho maadaama hadda aad iyo nawaaxigeedii iyo markan waxa dulku ee Soomaaliya ku jiraan hadda ku sheegtay saxafiyiin ugu laakiin magaalada Yurub ayadana ay ku registreen for example haddaan soo qaadan Dahar Calisow oo ku registreen in uu nin hadda fiirsi title-kiisa journalistic uu yahay investigative journalist oo recognition uu ka haysto European-ka dagaalka hadda aad isla wadaan waxyaalo badan oo cadeemo ah maxaa la dhahaa taaban karo ama aad kale dad wixii hadda aad ku sheegtay aad ku sheegi karto aad ku cadeyn karto in maxaa la dhahaa part of ka ahaa ama aad maxaa la dhahaa internet-kaba uu maxaa la dhahaa waxaad hadda adiga qalaasaha aad ku sheegtay uu ka wado waxyaalo cadeyn ah oo dowladaha hadda aan la nooshihiin tusayo inuu ninkan qaladaad badan ku jiro oo gaar ahaan Dahar Calisow aad ku hayso wax ma jiraan haddayna jiraan wax ma noogu sheegi kartaa tusayo inuu ninkan qaladaad badan si wacan runtii horta marka maxkamad iskama soo aadi lahayn anagoo haysan oo yani maanta si wacan runtii horta marka maxkamad iskama soo aadi lahayn anagoo haysanin cadeymo oo yani maanta kaafin karo maxkamadda iyo runtii waaxda maarkan muxuu security-ka ee wadanka runtii waan haynaa cadeymo fara badan baan ka haynaa waxaan runtii maantayto ilaahay mahadiisi ah wax walbo wixii asaga afkiisii ama gacantiisii ku samaystay ayaan rabnaa inaan ku maxkamadayno oo qiraalna ku filin oo maantayto maarkina muxuu ahaa markii kadib markii looyaradii ama looyarkii aan u bandhignay yani muxuu ahaa wax walbo qodobkii yani muxuu ahaa oo barnaamijkaas asaga ahaa
taaban lahaa ama loo adeegsan lahaa ama lagu oogi lahaa oo dhan waa diyaarinay marka cadeymaha dhammaan waxay maantayto gacanta ugu jiraan dowladda Holland iyo looyarkii arinteenii u xilsaarnaa maxkamadeynta afkudhiigle Daahir Cali Sow dhowr mar isagoo maxaa la dhahaa lagu soo rogay ama wax badan lagu eedeeyay sida asaga iyo dahabshiil waxbaa ka dhaxeeyay asaga iyo qaar kale waxbaa ka dhaxeeyay Daahir Cali Sow waxaa jirta waxyaalo badan uu dowladda Netherlands uu kaga gambado ama wax ku tuso asagoo cadeynaya inuu journalist yahay ama proof gareynaya inuu u haysto uu claim gareynaya in dadkan uu asaga daba taagan ay maxaa la dhahaa ay ka hor imaanayaan freedom of speech kiisa ama maxaa la dhahaa exercise kiisa una claim gareynayo freedom of press inuu qofka presska wuxuu raba ka hadli karo wuxuu raba ka sheegi karo waxyaalo badan oo maxaa la dhahaa oo dowladda Netherlands tusi karo oo cadeynaysa inuu journalist yahay ma cadeyn kartaa oo ma tusi kartaa adinkii lawyerkiina ma haysataan wax ka baxsan aan journalistic ahayn inuu sameeyay waxaasna maxaa lagu cadeyn karaa oo lawyer ku cadeyn karaa maadaama uu Daahir mar walba claim gareynayo inuu yahay nin journalist ah oo sidaan rabo wax u galaya sidaan wax u galayo uu koodkan isticmaalayo uu leeyahay dadkan iga soo horjeeda waxay diidayaan inaan dowladda ka hadlo inaan dowladda wax ka soo hadaladiisa badanaa dowladda ay tahay ama dadka power ka saaran ama Xasan Sheekh ha ahaato ama Dahabshiil ha ahaado ama Farmaajo ha ahaado ama dowlad kale ha ahaato mar walba uu ku maxaa la dhahaa ku adkaysto inuusan waxaan qabiil aysan ka ahayn laakiin ay ka tahay journalistic way and though some people inkastoo kuwa ay isdhihi karaan is beyond the journalistic oo way ka dheer tahay arrinta journalistic oo ayaan waxa journalistic xadkiisa ah uu dhaafsan yahay qaar baa ku doodi kara some can argue laakiin aniga ahaan waxaan weydiinayaa adiga iyo attorneyga iyo qolooyinkiinan aad ka activistiga u ah case cad oo dowladda Yurub u dhadhamaya dhihi kara maanta ninkan qodobkan buu ku jira oo uu dhaafay xadka journalistiga maxaa ka haysaan oo aad dhihi kartaa waxaas buu Daahir jabiyey violated gareeyay code of ethic awal runtii Daahir waxyaabaha ku hayno waxaa ka mid ah oo maanta ito inuu yahay runtii Daahir waxyaabahan ku hayno waxaa ka mid ah oo maanta ito inuu yahay yani muxuu ahaa Yurub aan laga ogoleen ay mamnuuc ay ka tahay dagaal ooga dagaal inuu kiciyo qabaa'il inuu yani kiciyo oo uu yiraahdo reer rebel iyo reer rebel iyo reer rebel marnaba kama dhamaato haddii arrimahaas waxaa saldhig u ah oo faafiyo oo yani muxuu ahaa maantayto yani muxuu ahaa hormuud u ah waa Daahir asigoo dadkii istusayo asigoo faafinaya hadalla xunxun oo dadka isku nici karaan arrimahaas iyaga Yurub waa ka xaraam asigoon afkiisa marnaba aysan ka dhamaanayn reer rebel oo reer rebel uu ka yahay oo reer rebel ka yahay reer كسيه جفلا صوصا يعني معها أنا في كيس ما نويس كدمانين معها إن صادرين تسوى كميدا يعني وحو الدراسة يا مشيئة يا وحي سدح مع الموت كدب للدونه أو غير يعني معها حمر كده الدونه السوشيال ميديا ده توصل طبيعة أو لاي هاي فور إكزامبل وتل هبل مالين هبلو ولا قرحينيا يا لاتين ماشي الدلحيسكو مالين الصوصات 4 ولا قرحينيا marka Daahir
inuu jaajuus yahay oo al-shabaab oo warbixintana si toos ah shabaab uu qaato runtii wax badan oo ka mid ah oo la tusin karo ayaa noo soo baxay markii aan wada fariisanay looyarkaygii oo aan ka wada hadalnay kiisaskii maarkin muxuu ahaa u sameynay turjumaan oo luuqad perfect ku ah ee wadankan markay ugu yaraato 30 sano degan ayaa wuxuu maanaha meesha iyada ka soo cadaatay inuu daahir al-shabaab qeyb ka mid ah uu yahay waxaa intaas sii dheer inuu yahay nin qaababka xunxun foosha xun ku raadiyo dhaqaale dhiig bini aadam oo daadanayo oo yani muxuu ahaa waxaad aragtaa markii xamar oo kale qarax ka dhaco daahir cameras muqdisho ay taallaa waxaad moodaa in shabaab gacanta ay ku hayaan oo iyagaba ay ku aadiyaan oo ay tusayaan dadkii calooshoodii madaxoodii lugahoodii gacmahoodii banaanadii yaallo ayuu ku aadiyaa camerada ilaahay maardiisii markaan dabagalnay oo aan yani muxuu ahaa xog hoose waraysi fara badan gudaha aan la xiriirnay waxaa noo soo baxday in yani muxuu ahaa rag fara badan oo al-shabaab ah uu ku haysto magaalada muqdisho horey waan usoo bandhignay sawirradii walba ma garat waa gartay waxaa jira dad badan oo maxaa la dhahaa daahir ayaamaha masawirkiisa hayay aan laga ogoleen ay mamnuuc ka tahay dagaal soo bilaabay dagaal inuu kiciyo al-sunna wal-jamaaca dad baa ku eedeeyay inuu ka mid ahaa al-sunna wal-jamaaca sawiro ee maalmo dhexdaas wadeen oo daahir wuxuu ka mid ahaa al-sunna wal-jamaaca galgaduud iyo goboladaas kale ma maqlaysaa maadaama dad badan ay leeyihiin qoraalada hadda aan halkan ka arkaya daahir al-sunna wal-jamaaca oo ka mid ahaa ma waxaa is leedahay al-sunna jamaaca wuu iska bedelay oo meel kale ku biiray mise waxaa is leedahay siyaasiyan koox isaga u shaqaysaa jirto oo maxaa la waxaan u samayso oo daahir calisow gooni ah u shaqayso oo aan ku jirin aan ka mid ahayn xarakada al-shabaab aan ka mid ahayn laakiin daahir calisow gooni ah ugu shaqayso ma jirto oo is leedahay mise waxaa jirta qolooyin isaga u shaqeeyo al-sunna wal-jamaaca oo wixiisa u oofiyo because qaybkuu ka hadlaa sida aan ka dhadhamiyey qaybkuu ka hadlaa tiri ma ayagaa qaybka usoo sheegay qolooyinkaas u shaqeeya ma qolooyinkaas baa qayb al-shabaab ka mid ah ma qayb al-suma ka mid ah oo daahir u shaqeeya miya ma dami jadiidkii hore oo dowladdii hore ka tirsanaayo is leedahay nabadda waddankay diidayaan oo qalalaasay wadaan ma kulliba sidee wax yihiin daahir ahlusunna wal-jamaaca ma ahan walaale ahlusunna wal-jamaaca yani muxuu ahaa dee wuu iska sheegtaa hadduu sheegtaa qof walba wuxuu doona wuu sheegan karaa laakiin daahir arrimaha daahir oo faraha kula jiro waa arrimo runtii maantayda soomaali ay maarkino ay u midowday inay si toos ah maarkino muxuu ahaa ula dagaalanto iskana dhiciso daahir waa al-shabaab saan kuu sheegay ragga xamar joogana waa al-shabaab waaya ayagaana warbixinta soo siiyo sawiradoodii iyo documentary oo dhan waan haynaa daahir mideeda kale xamar ama meelo fara badan oo yani muxuu ahaa dunida kamid ah baa lacag loogu soo diraa waxaan gacanta ku haynaa xawaaladaha daahir lacagaha ugu soo dhacaan daahir mideeda kale xamar ama meelo fara badan oo yani qaabka darano foosha xun dhaqaalaha ugu qaatay yani muxuu ahaa documentary ah oo yani xawaaladii lacagahaas ayaga qaabka ku qaatay maanta inta markaan hadda meeshan aan ka sharaxo foosha xun dhaqaalaha ugu qaatay yani muxuu ahaa oo documentary ah oo yani xawaaladii lacagahaas ayaga qaabka ku qaatay oo maanta inta markaan hadda meeshan aan ka sharaxo aad la yaabayso uu leeyahay ruux wax ka dhacay ama guri buu ka haystaa sida gabar Soomaaliyeed ee ku nool wadanka UK oo la yiraahdo ayaan Xasan Qaasim Subeer la yiraahdo oo kale runtii waxay la timid documents cadeynayo
codadkiisii oo dhan iyo warqadihii lacagta loogu diray wuxuu ugu sheekeeyay ayaan runtii waad wareysan kartaan oo yani contactigeeda wax walbana waad heli kartaan haddii loo baahdo. wuxuu ugu sheekeeyey inuu asaga nafsad ahaantiisiba maxkamadda Hague la shaqeeyo, ruux gabadhaas guri ka haysto oo ku sugan wadanka Dubai ee la yiraahdo Daahir Sheekh Cumar la yiraahdo, inuu asaga soo qaban karo keeni karo dalka. wuxuuna sheekeeyey inuu feel furo maxkamadda Hague uu ka furo lacagahaas ayagaana yani muxuu ahaa dowladda inay qaadato uu gabadhaas ayada ka dhaadhiciyay ayaa lacag yani $3,000 ayay u soo dirtay. $3,000 2,000 kamid ah Muqdisho hal igu dir buu yiri yani wiil asaga yani muxuu ahaa inuu dhalay markuu dadku u sheegay, markii dambana media uu ka cadeeyay inuusan asaga dhalin oo duur ka soo helay 90gii bilowgiisii soo korsaday oo yani aaba aan lahayn asaga uu sheegay la yiraahdo Cabdullaahi Daahir Cabdullaahi Alisow, kuna sheegay inuu ka shaqeeyo Salaama Bank ee magaalada Muqdisho. runtii lacagtaas ayada ah oo gabadhu ka qaatay yani macnaha lugaha Daahir yani sidoo u fara badan yahay waxaan ka hadlayno oo raba inaan maarkano social media aan yani u sheego. yani dheer wuxuu kula jiraa inuu dadku wuxuu ugu sheekeeyaa inuu asaga shaqaale Hague u yahay. Hague dadka maantayto dad soo qaban karo ama askarta maxkamadda Hague inuu ku jiro uu dadka u cadeeyo ku sheego. yani taas ayada ah ay tahay qodob aad iyo aad u foolxun yani muxuu ahaa oo in dhaqaale loo qaato magac ama title adiga aadan lahayn. midda kale Daahir kilibida loo soo diro oo Muqdisho loogu soo diro wadan kamid ah Yurub ayaa loo soo marsiyaa sida Finland oo kale. rag yani muxuu ahaa u soo diro yani DHL Memorial baa loo soo diraa oo waxa loogu keenaa magaalada uu dalka uu ka degan yahay ee wadanka Holland Bareeda loogu keenaa memorials oo ku duuban informationo oo al-shabaabku ay leeyihiin. wuxuu la dagaalamaa xukuumadda jirto, wuxuu ka jecel yahay in al-shabaab ay guuleystaan magacooda kor soo maro ayuu doonaya mar walba ahaa inuu yahay social media ku sheego. ma garat. Thank you. dowladda Soomaaliya arrimahan social media engineer Yirisu waxbay ku leedahay inay waxa hadday aragto ay ka hadasho ama way u banaan tahay maadaama ay legitimate government hadda tahay dowladda Farmaajo. engineer Yirisu maxaa is leedahay shaqadu asaga qaban waayay adiga iyo kuwa adiga internet activistska adiga camal ah oo isxilqaamo oo maxaa la dood qaran gargaar qaran iyo taageero ma nigu siiyaan yani engineer Yirisu shaqadiisa hadda qabanaysa oo internetka iyo waxa ka difaacaysa ummadii. waxaa leedahay according to hadalkaaga waxaa leedahay Soomaaliya halka baa laga dhaxeeyaa Daahir iyo xulufadiisa halkan Holland ah magaalada joogtid ka waxayaan. soo dowladda Soomaaliya engineer Yirisu wasiirka warfaafinta communication minister muxuu uga aaminsan yahay haddii wax jiraan mise wax cadeyn ama haysto mise waxa is leedahay oo waxyaalo kale ku mashquulsan yahay because maadaama ay shaqadiis tahay mise waxa is leedahay dadka xagga joogo isxilqaamay ah uga tun weyn oo xoogaa ka galgal badan oo adinka wax ka taqaanaan wasiirka iyo wasaaradda warfaafinta ah maadaama oo garab ma niigu siiyaan ka wada macnaha wasaaradda warfaafinta wax ma niigu siiyaan dowladda. dowladdu horta sideediiba dowladda waxay ka kooban tahay dowlad iyo shacab. waxa waaye waa laba يعني muxuu ahaa aan kala maarmin marnaba. dowladda horta sideediiba dowladda waxay ka kooban tahay dowlad iyo shacab. waxa waaye waa laba yani muxuu ahaa aan kala maarmin waay marnaba. waa dowladda iyo shacabka ma kala maarmaan. waxaan nahay annaka shacabkii dowladda nahay gaar ahaan aniga waxaan ahay nin u dhaqdhaqaaqo يعني peace activist baan ahay. waxaan ahay nin ka hortago runtii hay-ad yani muxuu ahaa registergaraysan oo international ah leh kana soo horjeedo maarkana muxuu ahaa kuwa dadka marin habaabiyo sida maarkana muxuu ahaa center hay-ad waxaa la yihahdaa Center for Youth Mobilization and Empowerment baa la yihahdaa. waa hay-ad
u taagan wacyigelinta dhalinta yaryar oo la duufsan karo lagu yani muxuu ahaa lagu maran habaabin karo fikirka xagjirka ama ideologistaha ah runtii maarkana muxuu ahaa horta hay'adaasan leeyahay sababtaas ayaan aniga igu kaliftay inaan dacwadan geed dheer iyo geed gaaban aan la koro oo maantaytan alxamdulilah rabbilcaalamiin aan taaganahay guusheedii iyo dowladana yani dowladaha dadkan magangeliyey sida maarkana wadamada sida Brussels oo kale maantayto wadanka Belgiumka ayaan joogay halkaas oo yani muxuu ahaa aan kula kulmay cidii qusaysay kiiska maarkana muxuu ahaa afku dhigle carab ama maarkana oo Cabdifataax magaciisa loo yaqaan originalka ah Cabdifataax Sheekh Maxamed Daahir la yiraahdo oo laakiin markuu meeshan yimid badal magaciisi Maxamuud Maxamed Daahir oo la bahay oo magacii rasmiga ahaan uu ahaa kan haddaan horey aan u sheegay marka maanta too kale meeshaan joogay dowladda marka waxay u baahan tahay information bay u baahan tahay information marka hesho dariiqii ugu habboonaa oo ruuxaas markii la arko khatarta uu ku yahay dalka iyo dadka uu asaga la nool yahay yani cidii markaas ayada cadaaladda qaabilsaneed ayay markan muxuu ahaa ayaa lagu markan muxuu ahaa ayaa lagu tusayaa sidaas daraadeed marka waxa waaye dowladda Soomaaliya waa dowlad alxamdulillah hadday dhalatay waa dowlad cusub waay yani waxa waaye hawl fara badan way haysaa dowladda madaxweynaha baaqiisa ayaa wuxuu ahaa dowladda shacabka doortay shacabka iska leh waxaan ku soconaa marka hadafkii madaxweynaha uu ahaa dowladda Soomaaliya waxaa doortay shacabka ayay ugu baahan tahay difaac anigana waxaan kamid ahay shacabkii dowladdaas garab istaagi lahaa aniga waliba maanta yani muxuu ahaa ruux sharciyeysan aan u ahay inaan la dagaalamo kooxaha xag jirka sida siyaabaha kala duwan u shaqeysto oo uu kamid yahay ninka carab la yiraahdo waxaan ognahay inuu wadanka hadda yimid inuu hadda soo tahriibay sanad uusan joogin baraha internetka waxaan ka maqalnaa inuu sharcigii wixii ka daba wareegayo haddana waxaa moodaa inuu internet warrior yahay oo xoogaa qabiilada qaarkood oo aad ugu fogaada internetka ninka carab la yiraahdo backgroundkiisa muxuu yahay muxuu sameeyaa muxuu xagu ka yimid oo ma journalista ma wariya because aniga aqoon saas uma lihin intaan Facebook ka ahan kama aan arkin laakiin waxaan rabaa inaan ogaado carab oo maalin dhaxdaas la yiri wuxuu ka sheekeynaa tahriibkii iyo dhibaatadii iyo wixii iyo meesha uu ku yimid haddana waxaa unfortunately oo xoogaa aan la yaabaa qof tahriibkii soo maray qofka dowladdu ka soo horstaagi karaa that's fine dowladdu waa aan karaa fine freedom of speech freedom of press laakiin xoogaa terminology uu qabiilada qaarkood uu ku waxeeyay iyo magac guud iyo hadduu magac guud madaxweynaha magaciisa guud oo reerkiisa iyo magaciisa gaar ahaaneedba hadday noqoto marka jaaliyadda maxaa la dhahaa Belgium ma jira miyaa dad carab qaraabadiisa ah ama meesha degan oo yiraahdo shaqadan it's beyond the journalistic xogaa waxay ku fiican tahay in journalistic waxay ka hadli karaan oo ka hadlo laakiin uusan general gareysan uusan xoogaa magacyada wixii 1991 Soomaali kala dilay uu xoogaa ka fogaado taas ma u malaynaysaa inay shaqo journalist tahay maxaana laga qaban karaa maadaama hadda Holland iyo dacwadii ay sheegtay dacwadan Belgiumka iyo maxaa ka qaban kartaa carab iyo maadaama uu nin meesha degan yahay oo isna leeyahay journalistiga ahay waxaan rabaan ka hadli karaa maxaa leedahay asaga anaga ku soo gabagabeynayna barnaamijkeena carab horta runtii laba nin oo isku xisbi ah oo hal group ah yani muxuu ahaa nimanka al-shabaab la yiraahdo haddii aad weydiisay carab backgroundgiisii carab xamar markuu joogay runtii waxa waaye wuxuu ahaa nin aad iyo aad haddii aad weydiisay carab backgroundgiisii carab xamar markuu joogay
runtii waxa waaye wuxuu ahaa nin aad iyo aad yani muxuu ahaa ugu dhow shabaab wuxuu saaxiib la ahaa nin haddeertan wariyaashii ugu waaweyn al-shabaab ka mid ah ma garanka ismaaciil stiil miya magac buu leeyahay hebel stiil nin la yidhaahdo oo insha allahu tacaala aan soo gudbin doono ma arkino informationkiisii ayuu saaxiib la ahaa reer hebel ma arkin muxuu ahaa baraaruj ma arkin muxuu ahaa ha soo galay haddana muxumo nin maanteeto wax kale oo dhan jimku asiga uu joogo si official ah ku yiri dad badan oo Soomaali barnaamijyada aan soo jarjarnay kamid yihiin oo asiga yani kiiskiisi kamid ah marka wala oo yani waxyaabaha laga hayo waxa kamid ah inuu yani yiri al-shabaab maalintii Ali Dheere ayaa fiican Sheekh Ali Dheere ayaa fiican inuu yiri oo yani muxuu ahaa media si official ah uu ku yiri dad badan oo Soomaali barnaamijyada aan soo jarjarnay kamid yihiin oo asiga yani kiiskiisi kamid ah marka walaal Arab waxa waaye wadankan runtii fara dublin ah nin la waaye oo aan wadankan sharci ku lahayn Belgiumka yani muddo hadda hal sano ayaa waxa la siiyay temporary ma arkin muxuu ahaa sharci ayaa la siiyay mana ogo qodobada yani muxuu ahaa ama wadankaas waxyaabaha looga dhaqmo ama bulshada waxyaabaha mamnuuc ka ah ee wadanka Holland wax oo aqoon ah uu leeyahay yaraatay malahan wax allaale wuxuu doono isaga hadlaa hasi ahaatee laakiin run ahaantii ninka hawsha wada oo dhan waa daahir afka daahir buuna ku hadlaa afka daahir buuna maanteeto maxkamad ku kori doona hadduu ilaahay idmo waxaaba laga yaabaa si inay sii fududaato barnaamijka inuu fududaado ayaa iska macquul ah oo yani muxuu ahaa markaan la kulanay degmada asaga uu iska dhiibay oo waqtigan caadirka oo madaxdeedii aan la kulanay haddii ay ahaan lahayd saldhigeedii booliiska haddii ay ahaan lahayd yani muxuu ahaa laamaha ammaanka oo kala duwan la dagaalanka argagixisada caalamiga oon u gudbinay waxyaabihii yani muxuu ahaa documentariga ah qaar ka mid ah wariyaasha ku nool gudaha muqdisho ay noo soo gudbiyeen oo ay leeyihiin inuu carab $10 siisan jiray dilka wariyaasha xamar oo keliya u jaajuusi jiray nimanka al-shabaab meelaha ay joogaan intuu telefoon u diro hebel hebel xaggee joogta meel hebland jooga bartaas yani muxuu ahaa ma arkin muxuu ahaa ku hagi jiray nimanka yani muxuu ahaa fidna wadayaasha al-shabaab ee ummadda dhibaateeyey dadkii yani muxuu ahaa dadkii qaraxii maanta يعني محوها إن رنتي وحمانتي ترنتي هذا وحنا بين برنامج كذا فايدستو اللايف كا إن أنا أتعسيه دتكي مانت كل ماضي قرحي كدعي مقالة مقدشو إن شعب سوى الحلية هاي دولة لا شقية أو دولة صوماليات وحي أباهنتهاي شعب أباهنتهاي يعني وحوها شعب الصومالي المال والبيجوغان إني لا شقيان كوح الصوت الشيء وعدسة الظاهر عربنا oo Yurubta ku dhumaalaysanay halkaan ay joogaan oo ay sheegteen magacyo aynan jirin wadamada Yurub yani muxuu ay ka dhaadhiciyeen barnaamijyadaas oo dhan insha Allah taala anaka ka daba tagayna hadduu Ilaahay idmo intaan la gaarin bisha Agoosto waxaad arki doontaan inaan maxkamadda soo istaajino kii lama saafuriyo mid walba wixii asaga xaq u yeesho in ay cadaaladu yani muxuu marnaba aysan ka baxsan karin baan idin cadeynaa ma garat last question waxaan ku weydiinayaa last question gabar la yiraahdo Mona Walker oo Sweden joogtay ayaan hore barta TV-ga ka arkeenay media dadka European-ka badanaa Soomaalida sheekooyinkeeda ma ay soo involve gareyn jirin oo kama ay hadasho Soomaali oo maadaama ay diinta Soomaalida aysan haysan diinta muslimkan ka wada aysan haysan ay ka baxday laakiin Soomaalida isku mid كأهد أيام هرا عرب أيوة الله اللي سامق لا يوده سو ساس بس كل يبت مجا عاش كل يبت خبير كاس كل يبت أنت كبعده لكن ضد كقاركود وحليهن
maadaama ay soomaalida arrimaheeda ay dhexgeli jirin oo soomaalidana isku mid u ahayd haddana waxay leeyihiin maadaama ay qabiilka khayre ay ka dhalatay xoogaa dhiig baa qaaday diin baa ka duwanaatay soomaalida laakiin dhiig baa qaaday oo waxay rabtaa inay qabiilkeeda taageerto oo khayra laga yaaba Scandinavian inay isku yaqaaneen oo reer Scandinavia isla ahaayeen because hadalladeedan ka dareemay khayra saas ah qabiilna waxoogaa dadka qaarkood waxay leeyihiin wax noo soo qoraya hadallada ay ku tuuraysa Arab ana soo helay iyo information-kaaga hayna ay awal Soomaalida inkastoo isku mid ay u ahayd haddana waxaa laga yaabaa inay khayre xoogaa aftirsi amal ku soo galayso dowladda ee isleedahay dowladdan waa dhinacaaga taageero maxaa ka jira ma laga yaabaa ayadana inay usoo involve garayso arrimaha Soomaalida just because xaggaas ay kaga timaadaa qabiiliyan ninka la yiraahdo prime minister munawar wallahi aniga naagtan aqoon uma lihi وقاش أنا أما جوكتو سودان جوكتو وحاونا أنا أقولي مران برنامج هذا المرة يعني محوها الشيء يسمى رئيس الوزراء يعني هذيك قرابي سلهت يديك الوحيد يقطع الله مركب بدأ سيدا برنامج كذي برنامج هتبانتي تأكوها لين عرب يداير just because حتى سكة قبيليا نكاليرا برايم مينستر والله حقنيه أنا ناكتن أقول ملهي لشيء أو داش أنا أما جوكتو سويدن جوكتو وحقونا أنا أقول ملهن برنامج هذا المرة وحي أيه يعني هو هاي الشيء يسمى رئيس الوزراء يعني هذيك قرابي سلهت يديك الوحيد يقطع الله مركب بدأ سيدا برنامج كذي برنامج أضمانتي تأنكوها لين عرب يداهر ملهن داهر يو عرب إن شاء الله تعالى أنك كفلن إن أنهودك كتبنو يعني إدكون وير من هبيات ملهن كيس كودين وافرمي وبلاوي وحبلان أو مانتي تو أن هذا الدوني إن أنتوا وهالله ورجعن يعني هو مانتي تو أكيد نو أبجره أو محكمة دورت إذا أنجين دونه أو آدي أبو فرحوا عليه السمين ما قرأت انت سايان ku deynayna barnaamijkeena maanta iyo Ismail Polio oo ahaa an internet activist or maxaa la Somali community activist in Europe oo dhawaan in walaha bakada wareegay sidii ku joojin lahaa hate-ka iyo maxaa la dhahaa polionka ka socda internetka oo ay qolooyin ka mid yihiin qolooyinka iyagana andoodo inay journalistic way wax ku wadaan Ismail ku mahadsan tahay this is the radio Fresh Air Capital Radio Cousin TV Somali TV Network Association kulligooda combine barnaamijkeena maanta Ismail Polio Martinogo aha assalamu alaykum wa rahmatullah